السلام عليكم دعوة فضلا هدي أنا قاعد صبتها إلا وإن channel كينات ساعتي سبسكرايب بري واحد جري قبل أن يرى لقوم جعاب جري عنب وحي لنا ولا يتقيس كذا أبيهد وحا وها بيرلي عنب هو ذي أبيهد وحي هايندد آذي آذو عد بل سيد مذبحان وحي هيد قبل آذي آذو مدو عنب أياهد قبل آذي آذو أقلب بدن وحي ناهد مدوح برشدة كفي عن أي معلمين تمرك قار كيابان سؤالها أي سو jeedinayso maalin maalmaha kamida waxa uu yimiday aabaheed macallinkii iyadu markaas wax u dhigayay waxauna ku yiri aabaheed waxa aan rabaa in aan ku sheego arrin ku saabsan gabadhaada ayuu yiri macallinkii canab aabaheed ayaa ku jawaabay arrinkaasi muxuu yahay macallinkii ayaa yiri waxaan rabaa maadaama ay gabadhaadu ardayda oo dhan ka duwan tahay oo ay tahay mid waxbarashadeedu aad iyo aad u tayo sareyso in aad ka kaxaysi tuuladan oo aad geeysid magaalada balse canab aabaheed ayaa yiri anigu ma awoodo inaan magaalo ku noolaado maadaama ay ku salaysan tahay shaqadaydu beeraley ka bacdi waxa uu ugu jawaabay macallinkii waa qasab inaad magaalada u guurtid adigoo eegaya gabadhaada yar mustaqbalkeeda walaalkii ayaa degan magaalada isaga ayaanan kugu xiri doonaa si uu markaasi shaqo kuu siiyo balse canab aabaheed waxa uu ku jawaabay go'aankan kaligay ma gaari karo waa in aan la tashtaa canab hooyadeed waana iskaga soo baxay ka bacdi wadada markii uu soo marayay kolba waxa ku soo dhacayay eraygii macallinka uu kula taliyay waxa uu yiri waa inaan habeen iyo maalinba shaqeeyaa si ay gabadhaydu mustaqbalkeeda u wanaagsanaado oo markaas magaalada u guura arrinka uu macallinku ii sheegay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waxa uu la wadaagay canab hooyadeed iyo ayeeydeedba si dhaqso ah ay waxa u yimaadeen magaalada canab aabaheed waxa uu helay shaqo uu markaas ilaalinayo bangi hooyadeedna waxa ay sameyn jirtay waxa uu shaqeyn jirtay guryaha waxayna ka meeli jirtay sida weelka iyo dharka si ay markaas ugu dabaraan noloshooda waxayna geeyeen isla markiiba iskuulkii wuxuuna ahaa iskuulkan iskuul aad iyo aad u wanaagsan canab iskuulkii markii ay bilowday waxay isku dayday inay la saaxiibto saaxiibadii markaas iskuulka dhiganayay balse maadaama iyadu ahayd gabadh aad iyo aad u madow saaxiibadu waxa ay markasta ku oran jireen hadalla ay markaasi ayna jeclaysan oo waad naga madowdahay adigu waa laga cabsanayaa iyo waxyaalo noocaas oo kale gabadhii yareed uqdada ayay ka qaaday hadalkii waxayna isku dayi jirtay markasta inay kaligeed iska socoto xitaa iskuulka marka ay dhiganayso oo ay fasalka ku jirto iyada cidna lama aysan fadhiisan jirin oo kaligeeda ayaa ahayd mid iyadu ay ardaydu takooraan oo kali u fadhiisata ardayda waxaaba ka sii darnaa macallimada markaas waxbarashada u dhigta oo waxay ahayd mid iyadu takoor weyn ku haysa canab waxayna ahayd mid ardayda oo dhan si fiican ula macaamiloota balse canab waa ay takoori jirtay wax hadalana kama ayna wareysan jirin oo marka ay isku dayday canab in ay la hadasho macallimadeeda waxay ahayd macallimadu mid iska dhaga marisa hadallada ay ku hadlaysa canab maalin maalmaha kamida ayaa waxay weydiisay ardayda macallimadii su'aashii waa ay wada garan waayeen canab ayaa tiri aniga ayaa ka jawaabaya macallin aniga ayaa garanaya jawaabtaasi waxayna tiri adigu yaa wax ku weydiiyey iska fadhiiso ayay ku tiri kuma weydiin adiga canab niyad jab weyn ayaa ku dhacay wayna iska fadhiisatay mararka qaar ardayda ayaaba dacaayadayn jirtay canab waxayna ahaayeen kuwa ardaydu gabi ahaanba ku qosqosla sidoo kale macallimada ayaaba iyaduna qosolkaasi raacin jirtay ardayda balse canab waxay ahayd gabadh yar oo aad iyo aad u aqli badan una degan wayna iskaga dulqaadan jirtay maalin maalmaha kamida aabaheed ayaa ku yidhi canab macallimada ayaa ila soo hadashay waxa ayna ii sheegtay inay waxbarashadaadu maalmahan hoos u dhacday gabadhaydii dadaal ayuu ku yidhi balse canab waxay damacday aabaheed inay u sheegto arrinka ay macallimada iyo ardayduba ay ku hayaan laakiin hadalkeedii dib ayay u liqday waxa ayna niyadda iska tiri haddii aad aabaha u sheegtid arrinkan ama aad la socodsiisid maadaama uu adiga aabaha magaalada u yimid sidii wax kuu bari lahaa aabaha waa uu niyad jabayaa gabadhii yareed aabaheed waxay ugu jawaabtay waa balan inaan dadaalo ayay ugu jawaabtay sheekadan oo dhan waxaa ogeyd canab ayeeydeed inay ardayda iyo macallimiintuba ay takooraan waxayna u yeedhay canab waxay ku tidhi gabadhaydii waan ogahay ayay ku tidhi marxaladda ka haysata iskuulka balse maalin maalmaha kamida waa ay ku jeclaan doonaan waxayna ogaan doonaan daacadnimadaada iyo sida aad waxbarashada u jeceshahay ee gabadhaydii iska samir ayay ku tiri
waxayna diri gabadhii yareed waayahay ayeeyo ayay tidhi waan samri doonaa wayna i jeclaan doonaan ardaydaasi iyo macallimadaasiba canab habeen iyo maalinba waxa ay ku hawlanayd sidii ay wax u baran lahayd waxayna ahayd mid markasta ku hawlan inay wax akhrisato waxay sidoo kale u dhabar adeegi jirtay ardayda iyo macallimiinta balse waxay iyadu markasta isku dayi jirtay inay la hadasho saaxiibada iskuulka dhigta laakiin waxay ahaayeen iyagu kuwa markasta iyada dhaleeceeya maalin maalmaha ka mid a warqada ayaa loo keenay ardayda warqadaasna waxaa ku qornaa waxaa jira tartan qofkii raba tartanka inuu ka qayb galo ha yimaado hoolka weyn ee iskuulka canab waa ay soo dhaqaaqday waxayna u socotay hoolka tartanku jiro uu ka jiro inay markaasi ka qayb qaadato tartanka balse waxaa dhexda isku arkeen macallimadeedii waxay ku tiri macallimadii gabadhay halkeed u socotaa waxay tiri canab waxaan rabaa macallin inaan ka qayb qaato tartanka ka jira iskuulka waxaana rabaa inaan ardayda ka qayb qaadanaysa aan ka mid noqdo waxay tiri macallimadii adiga oo kale kama qayb qaato tartanada noocan oo kale iska noqo ayay ku tiri balse nasiib wanaag halkaasi waxaa soo maray maamulihii oo isagoo canab aad iyo aad u jeclaa waxauna ku yidhi gabadheediiyo tartanka soo kama qayb qaadanaysid aniga ayaad horey iisii raacaysaa ina bixa ayuu ku yidhi isagoo markaasi gacanta qabtay balse macallimadii waa ay yaabtay afkiina juuqda ayuu gabay tii yareedna waxay raacday maamulihii waxa ay timidee canab tartankii ka jiray iskuulka waxayna ka soo jeedisay khudbad aad iyo aad ay ardaydii oo dhan afka qabsadeen waa ayna ka heleen ardaydii canab koobkiina sidaas ayay ku qaaday oo waa ay guulaysatay canab hooyadeedii aabaheed ayaa halkaas yimidee aadna waa ay ugu farxeen maalinkaa wixii ka dambeeyay ardaydu waa ay jeclaadeen canab daawada sheekadani waxayna baraysaa in aadan qof ku qiimeyn dharkiisa iyo midabkiisa toona oo aad ogaatid qofka shakhsiyadiisa iyo waxa uu yahay isagu